gudoomiyaha jiifafka ismaamulkan Gaarisa mudane Yuusuf Cali Cabdi ayaa ka hadlay xaaladda guud ee ammaanka gudaha magaalada tan Gaarisa oo toddobaadyadii la soo dhaafay dhacdooyin amni darro laga soo tabiyay. Mr. Yuusuf oo xafiiskiisa ugu warramay idaacadda Iftiin FM ayaa marka hore waxa uu ka hadlay sida ay tahay xaaladda guud ee magaalada tan Gaarisa. waxyaalaha waxaan rabaa inaan ka hadlo ku saabsan ammaanka magaalada Gaarisa, Bula Iftiin, Waberi, Galbeed, Township. beriyaan waxaan u maleeyaa arrimihii zamaani waa yar qowbeen, laakiin labadan beri wax baa soo kordhahaya. aad baan ilaalin lahayn oo nin monitor garaynayna. dhalinyaraha soo yarka beriyaan boda 3-4 kor saaran oo dadka dhacayaan waqtiga galabti ama salaad subax. waan la soconaa dhalinyaro waxaa jiraan boda 4 saaran 5 saaran dukaamay tagayaan, alaabaha qaaliga ay wareysanayaan, alaabku qofka igu alaabta u dhiibo haddana wuu cararaya, boda wuu fuulaya, wuu cararaya. waxaan iga codsanaynaa tafadhal isaana inaad magaciisa noo keentaan. sirta lama bixinayo, dowlad sir ma bixinayso. alxafiiskiya in haddaad ii keento tillaabo qaadaya. dhanka kale waxa uu soo jeediyay in ganacsatada iyo dadka ku dhaqan xaafadaha qaar ee awooda in ay xirtaan kaamirada qarsoon ee lagula socdo dhaqdhaqaaqa dadweynaha iyo falal dambiyeedyada ee loo yaqaan CCTV kaamirada si dabagal loogu sameeyo shakhsiyaadka ku howlan falalka burcadnimada ee ku sugan gudaha magaalada tan Gaarisa. midda kale reegaaris waxaan idin ka codsanaynaa dukaamaha ninkii beecsharo qabo oo dhan inuu CCTV camera uu ku xiro dukaanka hortiisa, banaankaas oo dhan ku xiro. waxaan iga codsanaynaa waa sababu ninka meesha hadduu imaado sawirkiisu way qabanaysaa, arrimahan yaryar way dhammaanayaan. so reegaaris tafadhal dukaamaha ku wada xira CCTV camera. dhanka CCTV camera waxaad ka hadashay buulooyinka iyo magaalada maxay macnaha muhiimad gooni ay leedahay. dad badan ayaa CCTV camera hadda waxay u arkaan inay qaali tahay ama magaalada laga helin. dadkaas marka maxaad uga baaqaysaa? CCTV camera qaali ma aha oo lacag sii weyn ma aha, laakiin adiga haddaad hurdayso oo bahasha aashido habeenkii tuugada imaaday qabanaysaa. so waa very easy in la helaa ninkanito waxa sameynaya wax dhacayo. waa very simple. ama inoo cabsado hadda qaar waa jiraan hadda aan daba soconno waa la garanaya CCTV soo saartay waan la helaya insha Allah. so adiga buulada u dambe tukaan dad ku qabto ninka ma fahmayo inuu CCTV meesha ku meel ku qari. so at the end of the day qofkaas way qabanaysaa waan helina insha Allah. xaran karaan hata lacag uruur ku xaran karaan. waa very simple. 40 geesa camera lagu xiray wax la buu qabanaysaa. so muhiimadda aad u fiican waa CCTV camera. hata police ma baahan CCTV camera wax la buu qabanaysaa. dhanka kale waxa uu ugu baaqay waalidiinta inay feejignaan dheeri ah muujiyaan si carruurtooda aysan qayb uga noqon howlgallada ay wadaan ciidanka amniga ee gudaha magaalada tan Gaarisa. School waa la xiray, imtixaan u dhamaaday. in la buu ka dambeeyo ilmihiis ha ilaalsado. gabar hadda dhashay ilaalso. gabadhiya la kufsaday ee sheeko noocaas oo keenina anaga. school waa la xiray, ilmaha la ilaaliyo. wazaziga ilmaha indiga dhasheen. iwo toteenu munaqsumbuana ugu dhibaysan oo leeyahay xunugiya saasamiya wax baa la xaday ilmiin ma ilaalsata ilmaan aabaha hore qaban. so waxaan ka codsanayna in la buu ilmiisa la ekaado oo ku ilaaliyo. operation baan sameynayna xunuga hadii la qabto tuugnimo baa lagu soo dacweyn adeen of the day. oo reegaaris tafadhal amaan wax ka fiican ma jiro. waad ogtiin agi ilmaha iskoriska ay meelaha ni istaagan cabaade ogaantay dhacayo ogeedin had waa la qowbay dib ma jiro. so ammaankaas haran inuu ku socdo in la buu ammaanka ilaaliyo. wabillahi tawfiiq. dhanka kale waxa uu ka hadlay roobabka xooggan ee ka da'aya guud ahaan gobollada kala duwan ee dalka, iyadoo habeennimadii xalayto roob xooggan uu ka da'ay gudaha magaalada tan Gaarisa kaasi oo biyo badan dhigay xaafadaha. waxa uuna sheegay in arrintan ay sabab u tahay dadweynaha ku dhaqan magaalada tan Gaarisa oo aan qaab habboonayn u xirtay goobihii biyo mareennada. waxa uuna ugu digay in ay howlgallo lagu furayo meelaha biyo mareennada ah ay sameynayaan iyagoo kaashanaya laanta maamulka iyo maareynta magaalada tan Gaarisa ee loo yaqaan municipality-ga ee xukuumadda ismaamulkan. midda kale roob waqti roob la joogo
reegaar sidaatiin biyo isku xiraysaan dadku waxay sameeyaan adi intaad ka xiri ani intaan ka xiri meel la maray ma laha intaad u socotiin koona labo biyaad ka xirteen biyihii meel ay marayaan lagaad xirayseen soo waxaan idin codsanaynaa biyahan aad xiraysaan daaya dadka ayagana meelaha biyaha xireen oo biyo mareen ay ahayn aad xiraysiin municipal council aan la kaashanaynaa waan duduminaynaa dhulkaas oo dhan municipal council aan tegaynaa waan arrimahaas waan qabanaynaa cabdiqani maxamed iftin FM magaalada Gaarisa.